Bismillahi Raxmaani Raxiim kusoo dhawaada cashar kale cusub. Dhegeystow ma isku aragtay kuus adag oo kaaga samaysmay meesha gacanta ka laabanto ee jalaqleyda ama cagta korkeeda sida sawirada kore ka muuqdo, kaasoo inaa cadaadiso mooye aan ku xanuuneyn. Haddii jawaabtu haa tahay, casharkan adigoo kugu socda ee ka faa'iideyso lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka Eastern. Waxaa ciladan loo yaqaanaa burobiyoodka kala goysyada, afka qalaadna lagu dhaho ganglion cyst. Waa cilad ku badan bulshada ayna isku arkaan dad badan oo kuus ay ku jiraan dareere oo ku samaysmo kala goysyada gacanta, jalaqleyda ama cagta korkeeda. Si yar ayuu ku bilaaban karaa, laakiin wuu weynaan karaa. Markii jirka korkiisa laga taabto waxay u egtahay wax kuusan oo adag, laakiin la dhaqdhaqaajin karo. Alle wuxuu kala goysyada jirkeena ku abuuray dareere hawshoodu ay tahay inay subkiyaan kala goysyada si aysan lafaha isku xoqin. Dareerihii ama biyihii ayaa booskoodii ka soo baxayo oo kuus ahaan u samaysmayo. Qofkii isku arkay ciladan wuxuu u maleynayaa marka hore in laf ka soo booday kala goyska, laakiin saas ma ahan. Kuuska ganglion wax dhib ah ma keeno, mana ahan buro kansar ah ama nabar ama laf booskeedii ka soo baxday ama carjo meesha ku samaysantay intaba. Marmarka qaar waxaa la dareemaa xanuun markaa gacanta laabtid ama cadaadis saartid kala goyska. Marmarka qaar way iska shuuqdaa ama baaba'daa daawo la'aan, inkastoo sanooyin qaadan karto. Sidee loo daaweeyaa? Badanaa waxaa daawo la raadsadaa markii ay xanuun keento ama dhaqdhaqaaqa kala goyska ay xannibto. Laba siyaabood ayaa loo daaweeyaa: in biyaha ama dareeraha ku jiro laga miiro, iyo in qalliin fudud lagu sameeyo oo kuuska lasoo wada jaro. Cirbad kusoo nuugista waa wax sahlan oo bukaan socod ahaan ayaa lagugu sameyn karaa, laakiin badanaa way soo laabataa oo biyihii ayaa dib u soo galo. Inkastoo haddii laga cabsi qabo in biyaha kusoo laabtaan lagu shubo dareere kale oo shuuqinaya kuuska. Midda qalliinka waa in la jeexo maqaarka oo kuuska salka laga soo jaro. Tani badanaa ma soo laabato, laakiin waa qalliin oo isbitaalka ayaa u joogaysaa marka lagu sameynayo. Marmarka qaar way dillaaci kartaa. Haddii ay keligeed qaraxdo waxay keeni kartaa xanuun iyo barar. Sidaa darteed, gacanta kor u qaad, baraf saar, xanuun baabi'iye qaado. Laakiin hadduu xanuunka 3 maalmood kadib sii jiro, dhakhtar u tag. Cashirkeena maanta waa intaas. Wixii su'aalo ah oo ku saabsan ama mowduuc kale oo aad rabtid inaan ka hadlo, fadlan qaybta commentiska ee muuqaalkan kusoo gudbi. Waana mahadsantihiin.